بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينك وحجينك دولة بنتلان قدوميها بارلمانك iyo gudoomiye ku-xigeenada xubnaha golaha baarlamaanka martisharafta halka joogta ee golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka iyo howlwadeennada golaha baarlamaanka saxaafadda ciidamada amniga iyo dhammaan dadweynaha reer Puntland meel kastoo ay naga dhageysanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye mudanayaal waxaan idinku salaamay salaanta islaamka waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiina imaado maanta si rasmi ahna aan u furno kalfadhigii kontonaad ee golaha wakiilada Puntland iyadoo aan warbixin idinka siin doono arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo warbixin taabanaysa waxqabadka xukuumadda intii u dhaxaysay labada kalfadhi mudanayaal iyo marwooyin intii labada kalfadhi u dhaxaysay waxaan safar shaqo ku tegay caasimadda dalka ee Muqdisho oo aan ka qayb galay shirkii golaha wadatashiga qaranka bishii January 2020 shirkaas waxaa la isla qaatay qodobo dhowr ah oo aasaas u ahaa in dalku ay ka qabsoonto doorasho ku dhacda si nabad ah sidoo kale 19 Abriil 2022 waxaan mar kale safar shaqo ku tagay magaalada Muqdisho si loo sii wadi lahaa geedi socodka doorashada dalka halkaas oo aan ka mid noqday musharaxiintii u tartantay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa inaan uga mahadceliyo mas'uuliyiintii iyo shacabka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaalidii kala duwaneyd ee had iyo jeer taageerada ila garab taagnayd waxay ahayd isku day aan aaminsanaa in ay wax uga qaban karay caqabadaha ragaadiyey ee dowladnimada Soomaaliya laakiin alla idankiis ma aysan noqon balse waxa aynu qayb ka qaadanay in waddanka isbeddel ka dhaco taasoo loogu doortay madaxweynaha cusub ee mudane xasan sheekh maxamuud oo aan u rajaynayo inuu alla ku guuleeyo mas'uuliyaddiisa mudanayaal iyo marwooyin doorashadii madaxweynaha kadib waxaan ka qayb galay shirkii golaha wadatashiga qaran oo socday muddo 2 beri ah kaasoo looga hadlay sii xoojinta iskaashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo hirgelinta lifaaqii heshiiskii 27 May 2021 ee qorshaha hortabinta leh ee dhammaystirka dhismaha dowlad dhiska Soomaaliya oo ay ugu muhiimsan yihiin dhammaystirka dastuurka iyadoo laga heshiinayo qodobada siyaasiga ah ee awood wadaagga qaybsiga khayraadka nidaamka maaliyadda ee federaalka dhammaystirka hannaanka amniga qaran si loo helo ciidan qaran si wada jir ahna loola wada dagaalamo argagixisada dib u heshiisiin in laga gaaro dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo mid bulsho taabagelinta nidaamka federaalka hirgelinta nidaamka garsoorka oo madax bannaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan idinkula wadaagayaa waxqabadyadii xukuumadda u qabsoomay muddadii u dhaxaysay bishii Oktoobar ilaa Juun kuwaas oo aan u kala saarayno 4 qaybood qaybta amniga iyo arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta maadaama lagu guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee la qabtay degmooyinka Eyl Qardho iyo Ufayn dowladda Puntland waxaa ka go'an inay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba qabato doorashada guud ahaan degmooyinka Puntland waxaa socda wacyigelin laga wado degmooyinka dhiman oo la rajaynayo bisha December 2022 laga qabto doorashada sida ku cad qorshaha iyo jadwalka guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxaa mar kale hortiina ka ballan qaadayaa inay iga go'an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda sida aynu wada ogsoonnahay waxaa dib u dhac ku yimid curashadii roobka guga
waxa uu saamayn weyn ku yeeshay nolosha miyiga iyo magaalaba. dawladdu iyadoo ka jawaabayso waxa ay gaarsiisay gobolladii u darnaa biyo dhaamis sida gobolka Mudug, Sool iyo Sanaag oo abaartu ay saamaysay, waxayna ka faa'iidaystay 13,240 qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu aadka u saamaysay. waxaan rabaa inaan halkaan ugu baaqo dhammaan hay-adaha dawladda, hay-adaha caalamiga ah, ganacsatada, culummada, shacabka guud ahaan in loo diyaar garoobo caawinta dadka ay abaartu saamaysay oo hadda meelaha qaarkood laga dayrinayo. waxaan alle ka rajaynayaa in uu naxariistiisa ina siiyo, raxmad iyo roobna ilaahay uu nagu mannaysto. waxaa tababar loogu soo xiray xeryaha tababarrada ciidamada ee Xergoble iyo Godod, 2 dufcadood oo isugu jira ciidanka daraawiishta iyo booliiska. sidoo kale waxaa tababar kor loogu qaadaya aqoonta iyo xirfadda saraakiisha qaybta nabadgelyada waddooyinka Puntland loogu qabtay kuliyadda tababarka Carmo. waxa ay qayb ka tahay barnaamijyada tayeynta, dib u habaynta iyo diiwaangelinta ciidanka Puntland. waxaa xarigga laga jaray 5 saldhig oo casri ah oo laga hirgeliyey 5 degmo oo Puntland ah, halka la ballaariyey barnaamijka bulaysiinta bulshada oo la gaarsiiyey degmooyinka la ah Carmo, Rako, Waaciye, Xarfo, Galdogob, Jarriiban, Isku Shuban, Dangaroyo si loo xoojiyo wada shaqaynta bulshada iyo booliiska. waxaa laga furay xafiiska cabashooyinka gudaha iyo dibadda ee booliiska si loo yareeyo khaladaadka gudaha booliiska iyo kan bulshada u geysan karaan. si kor loogu qaado adeega garsoorka waxaa socda dhismaha xarumaha maxkamadda sare, maxkamadda baran, xafiiska xeer ilaaliyaha guud. waxaa kaloo sharciyeed loo fidiyey kaalmo sharciyeed loo fidiyey 180 qof, halka garsoor dhaqameedka ay galeen 1,200 oo kiis guud ahaan Puntland. sidoo kale dawladdu waxay isha ku haysaa kiiska dhoofinta dhirta oo meel fiican maraya markii labaadna maxkamadda darajada koowaad ay dhegaysatay, bulshadana ay ka qaadatay doorkii kaga aadanaa. dawladdana waxaa ka go'an la dagaalanka xaalufka iyo ilaalinta deegaanka iyo waxaa hoostaga ee dhirta iyo duurjoogta ah. mudanayaal iyo marwooyin, sida aynu wada ogsoonnahay dunida waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo ay sababeen xanuunkii COVID-19, colaadda Ukraine iyo Ruushka, iyo kuwo innaga noo gaara oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo ilaha dakhliga oo hoos u dhac ku yimid. waxa ayna taasi sababtay in ku talagalka miisaaniyadda 2022 uu ku yimaado isdhin 15% ah, bil kasta una dhiganta 9,186,571 intii u dhaxaysay bilihii January ilaa May, kuwaasoo saameyn ku leh sannadihii hore isdhinka ku dhacayay miisaaniyadda. sidoo kale waxaa khasnadda dawladda ku jira lacag shilin Soomaali ah oo u dhiganta 5,246,531 oo iyadana iska ah lacag aanan shaqaynayn oo ka go'an miisaaniyadda dalka oo aanan waxba qabanayn maadaama shilinkii Soomaaliga isticmaalkiisii uu meesha ka sii gabaabsi yahay. dawladda muddadaas waxa ay qaadatay tallaabooyin isdaba joog ah oo kor loogu qaadayo ilaha dakhliga, waxaana shir isugu yimid hay-adaha dakhliga soo saara, waxaana socda sidii loo dardargelin lahaa dakhliga, dibna loogu eegi lahaa miisaaniyadda 2022. sidoo kale colaaddii Ukraine iyo Ruushka waxaa ka dhalatay cunto yari soo food saartay guud ahaan dunida. haddaba dawladdu waxa ay dhiirigelinaysaa tabcashada beeraha iyo wax soo saarka gudaha, taasoo qayb weyn ka qaadanaysa hoos u dhigidda cunto yarida si aan uga gaashaamanno xaaladda cunto yari ee dunida soo food saartay, taasoo horseedi karta kor u kac ku yimaada qiimaha maciishadda daruuriga ah. sida ay warbixinta istaatistikada ee wasaaradda qorshaynta Puntland sheegayso, waxaa kor u kacay maciishadda Puntland oo hadda gaartay 19% inuu qiimaha qutul daruuriga uu kor u kacay, taasoo cabsi laga qabo inuu kor u sii kaco haddii adduunku sida hadda uu ku jiro ku sii socdo.
waxaa ganacsatada puntland ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan kaydka cuntada puntland hoosna loo dhigo raashinka ka baxaya puntland marxaladda soo socota waxaa muhiim ah in wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha quseeya ay aad isha ugu hayaan kaydka raashinka ee puntland yaalla ee soo dega iyo kan gudaha ka soo bixi karaba si loo ilaaliyo badqabka nololeed ee bulshada reer puntland iyadoo laga duulaya sidii wax soo saarka dalka kor loogu qaadi lahaa waxaa la diyaariyey xarumaha kaydka kalluunka ee gumbax xandha kulule iyo ceel dhidir waxaa doonyo kalluumaysi iyo qalab lagu wareejiyey kalluumaysatada degmooyinka eeliya laasqoray dhinaca kale waxaa la dardargeliyey la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah kaas oo lagu soo qabtay doonyo si aan sharci ahayn uga kalluumaysanaya xeebaha puntland xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha puntland sidaa darteed waxaa puntland ka dhoofay intii u dhexaysay labada kalfadhi 864,376 neef oo isugu jira geel lo iyo ari waxaa kor u kacay xoolaha dhoofaya 21% si loo xaqiijiyo tayada caafimaadka xoolaha waxaa adeeg caafimaad xoolaha oo isugu jira tallaal iyo daaweyn la gaarsiiyey 3.1 milyan oo neef oo isugu jira noocyada xoolaha la dhaqdo sida ariga looda geela iyo fardo ay ka faa'iideysteen 24,756 qoys iyadoo laga duulayo kor u qaadidda wax soo saarka gudaha waxay dawladdu gacanta ku haysaa beeridda 15,000 oo geed oo ay ka mid yihiin 4,000 oo geed oo timireed ah oo lagu wareejin doono beeralayda waxaana 310 beerood la gaarsiiyey abuur iyo qalab abuur waxaa la tababaray 2,200 oo beeraley ah oo xirfadooda beeralayda ugu wanaagsan kor loogu qaaday sida loola tacaalo isbeddelada cimilada taasoo wax weyn ka tari doonta caqabadaha haysta beeralayda puntland mudanayaal iyo marwooyin si loo helo jiil ku carbisan aqoon iyo akhlaaq waxay dawladdu har iyo habeen u taagan tahay horumarinta adeegyada aasaasiga ah oo ugu horrayso waxbarashadu waxaana sannadkan si guul ah ku soo idlaaday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad iyo 12aad ee sanadusiyadka 2022 oo u fariisteen arday dhan 18,550 taasoo ka dhigan in kor loo qaaday sannadkan tirada ardayda 5% waxaana fasalka 12aad u fariistay 5,940 3,660 iyo 7 wiil iyo 2,223 gabdhood halka fasalka 8aad ay u fariisteen 12,610 arday oo 7,302 wiilal yihiin 5,308 gabdho yihiin waxaa deeq waxbarasho heer jaamacadeeda helay 403 arday taasoo isugu jira gudaha iyo dibadda dawladdu iyadoo fulinaysa siyaasaddeeda tayeynta iyo baahinta adeegga waxbarashada waxaa markii ugu horraysay la qoray buugaagta manhajka dugsiga dhexe iyo manhajka dugsiga sare sidoo kale waxaa la dhisay 5 dugsi oo isugu jira dugsi hoose dhexe iyo oo cusub waxaana 73 fasal lagu kordhiyey iskuullo hore u jiray halka la dayactiray 20 dugsi waxaana deegaanada fogfog ee aysan ka jirin adeegga koronto la gaarsiiyey nalalka cadceedda ku shaqeeya iyo aalado lagu duubay casharrada fasallada 1aad ilaa 12aad oo ay ka faa'iidaysteen 3,000 oo arday waxaa adeeg caafimaad oo lacag la'aana helay 230,415 qof sidoo kale waxaa la qalabeeyey 12 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka ah waxaa la dayactiray 7 xarumood oo horey u jiray halka 6 ka mid ah gaadiidka gargaarka degdega ah ambulanska la gaarsiiyey degmooyinka gaalkacyo tawfiiq eyl taleex beledbidin iyo isku shuban dawladda iyadoo ka duulaysa hiigsiga ah in ay dadka reer puntland helaan biyo ku filan ayay qoday 9 ceel biyood muddada labada kalfadhi u dhaxaysay oo hor leh
waxaana la dayactiray 36 ceel halka ay soo idlaadeen hirgelinta 16 biyo xireen ama warood waxaana biyogelin loo sameeyey 22 tuulo iyo weliba goobaha barakacyaasha mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxa ay dadaal xoog la gelisay sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha oo lafdhabar u ah horumarka bulshada haddaba muddadii aan joognay waxaa mudnaanta koowaad siinay sidii wax looga qaban lahaa waddooyinka dekedaha garoomada diyaaradaha waxaana hadda socda mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin waddooyinka waxaa meel gabagaba maraya dayactirka waddada dheer ee laamiga ee Boosaaso Gaalkacyo Garowe iyo Laascaanood ceel daahir iyo ceel gaabo waxaa sidoo kale sahmin lagu sameeyey oo la wadaa jidadka Qardho Bayla Kalabayr Caluula waxaa iyagana dhowaan bilaaban doona haddii Ilaahay idmo dayactirka lagu sameyn doono waddada la fagoray oo iyadana meel heer gabagaba maraysa sidii hawsheeda loo bilaabi lahaa waxaa socda dekedda Boosaaso oo lagu sameeyey xafaarad oon rajaynayno insha Allah muddo dhowna inay dhismaheedii u bilowdo sida qorshaha u dambeeyay uu yahay haddii Ilaahay ka dhigo sidoo kale waxaa dhammaaday wajigii koowaad ee dekedda Garacad waxaana la rajaynayaa inay dhowaan si toos ah u shaqo bilaabi doonto waxaa socda mashruuca horumarinta garoonka Boosaaso oo hadda meel gabagaba maraya dhismaha hangarka diyaaradda iyo xarunta labaad ee ugu weyn ee laga hago oo laga maamulo marinada diyaaradaha Soomaaliya sidoo kale waxaa meel fiican maraya shaqada horumarinta garoomada Garowe Gaalkacyo iyo Qardho korontada iyo biyaha sidoo kale waxaa socda mashaariic badan oo fidinta biyaha ee magaalooyinka waaweyn iyo wax ka qabadka baahiyaha korontada ee dalka jira mudanayaal iyo marwooyin si loo fududeeyo adeegyada ay bixiso hay'adaha dawladdu waxaa laga maarmaan noqotay in la jaanqaado isbeddelka tiknoolajiyada caalamiga waxaa xusid mudan in dawladdu ay diyaarisay 5 barnaamij oo casri ah kuwaas oo qayb weyn ka qaadan doona shaqooyinka iyo adeegyada ay bixiyaan hay'adaha dawladda waxayna kala yihiin hannaanka maaraynta shaqada golaha xukuumadda ama loo yaqaan e-cabinet hannaanka korjoogtaynta iyo qiimaynta mashaariicda iyo waxqabadka dawladda hannaanka maaraynta xogta shaqaalaha dawladda iyo hannaanka bangiga dhexe hannaanka maamulka dugsiyada ee loo maamulo Puntland School Power System si kor loogu qaado tayada iyo wax soo saarka shaqaalaha dawladda ayna raasumaal la hubo ugu noqoto hay'adaha dawladda Puntland waxaa markii ugu horeysay dalka dibadiisa loo diray 22 tababare oo soo dhamaystay 40 koorso oo kala duwan kuwaas oo dhowaan bilaabi doona tababarka shaqaalaha dawladda oo loo qorsheeyay wajiga koowaad in la tababaro 1,000 shaqaale ah waxaana rajaynaynaa shaqadooda tababarayaasha oo ay aragnimo ajaanib ah in iyaguna imaan doonaan oo kor u qaadi doonaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan rajaynayaa in kalfaldhigan uu noqdo mid guul badan laga gaaro arrimihiisa masiiriga ah idin horyaalla waxaan hadda si rasmi ah noogu furan kalfadhigii kontonaad ee golaha baarlamaanka dawladda Puntland وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته